بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa qolada warbaahinta waa salaamantihiin. waxaan maanta suuqin yeedhay ama ujeedada hadalkaygu uu yahay arrimaha ka socda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland ee doorashooyinka. waxaa nasiib darro ah qarniga ku ilaatira dad baa in israaxad inay isku ridaan isku dayahaya. dad baa doonaya ummad oo dhan oo aamusan oo fiirinaysa inay waxay doonaan ka sameeyaan. waxaa ka mid ah dadkaas maxaan ku dhahdaa madaxweynaha Jubbaland oo Yaakubka dadka waxa sameynaya. waxaan xusuusinayaa ummadda Soomaaliyeed marka koowaad imaatinkiisii hore ee uu yimid 2013 wuxuu ku yimid si sharci darro ah. boob uu boobay ayuu ku yimid. boobkaas ma ahayn boob caadi ah, waxa weeye milxiisyo wax la yiraahdo oo dalka hore loogu aqoon jirin ayuu bilaabay. waynu wada ogsoonahay. waxa ugu horeeyay Hilowle Aadan iyo Sambaran la yiraahdo Maxamed Nuur ayaa ugu horeeyay oo sanadka uu ka dhigtay milxiisyo. sanadkii ku xigay oo ahaa 2015 waxa milxiis u ahaa Hilowle Aadan iyo Fayrus iyo محمد شمبرة صدق nin baa u ahaa hadana malxiis tii u dambeysay 2019 wuxuu ahaa maxamed maxamuud iyo canab maxamed daahir. tobankaas sano ee uu joogay oo maxaan ku rahdaa 12 sano weeye afar lagu dhuftay 3 min 4 lagu dhuftay 12 sano uu joogay Axmed wuxuu ku eegyahay magaalada Kismaayo. gobolkii galgacaadisa kuma jiro, gobolkii Jubbada Dhexe gacantiisa kuma jirto, gobolkii Jubbada Hoose gacantiisa kuma jirto. Kismaayo aageeda ayuu ku egyahay. waxaa weheliya afmadow oo iyaduna dhan walba ka xeeran oo ay sokayna toosna loogu tegi karin lagana soo bixi karin iyaga nimankii maxaan ku dhahay sabaabka loo dhex mara moogiye. taas waxay muujinaysaa muddada dheer uu joogay wax qabad uu qabtay inayna jirin. isaguna sidaas uu ku yimid kolka qaab sharci ah kuma jooga dalka kumana xukumo. cid dooratay ma jirto. milxiisyaa doortay. milxiisyadii ayuu wuxuu u rogay inuu Soomaaliya oo dhan gaarsiiyo oo ku fidmeeyo Soomaaliya oo dhan. waxaa nasiib darro ah maanta in dhammaan states oo dhan ay noocii qaateen oo isagu macallin uu yahay. ummadda Soomaaliyeed taariikhdu way qori doontaa wax maanta dhacaya. waxa weeye wax qabadna ma jiro. dekadaas iyo waxyaabo meelahaas laga lulufto ayaa mataqaanaa lagu hayaa. dowlad sharci ku dhisan oo maamul ku dhisan oo gobol ah oo state ah oo jirtaa ma ay jirto. isagu siduu ka doono weeye. wuxuu leeyahay dadku ummaddu ay leedahay salaadiin bay lahayd. waxay lahayd dad mataqaanaa hogaamiyayaal dhaqan bay lahayd. waxaa la gaarsiiyey hogaamiyayaashii dhaqankii in mid walba la yidhaha guri aa lagu galaya aamuso halkaa fadhi. ummad kolka la burburinayo meelaha laga galo waxaa ugu daran xagga maxaan ku dhaha dhaqanka iyo xagga maxaan ku dhahdaa manhajka waxbarashada. xaggii dhaqanka saas ayuu ka yihiin oo nin maanta suldaana oo dadkiisii hor fadhiya oo dadkiisii loo dirahayo oo wax ka qabanhayo oo doorashada wax ka maamulhayo oo wax ku leh oday dhaqan ama nabadoon ha ahaato ama suldaan ha ahaatee ma ay jirto. taas waxay muujinaysaa heerka burburka Soomaaliya uu sii gaarsiinayo walaalkay Axmed isagoo oo sharci ku fadhiya waliba oo sharci darro xooga ku fadhiya. waxa weeye baarlamaan baa la samaynayaa baa la yidhi. baarlamaan ma ahe waa xulasho. cid lagala tashaday ma jirto. qabiila lagalama tashanin. salaadiina lagalama tashanin. nabadoonana lama tashanin. waxaa jira wax la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa ergada joogtada ah oo markii ninkii yimaadaba loo keeno. cidday yihiin lama yaqaano. askar bay u badan yihiin. cid walbaa ku jirta. sidaas ayaa weeyaan qaabku wax ku xukumayaa. wax allaala wixii ahaa xuquuq uu shacabku lahaa ee ahaa inuu xana doorta lana dooran karo waa uu ka qaaday. sharcigaas
كشري محن كنا كونستيشن الصومالي كملقان كان أبوه باباي لأن لما دورك رو وسنسوي ربين لأن أنا وسربين وأحمد دورك رو حتى وأحمد دورك رو لما أنا دورك رايو هل كاس أيوة أحمد مرهيا محن كنا هذا ضلكي وحكومة وحنقول السيدنا عن هذا الشيء له ميل وعنده كوهيا ما أجرته وحكذا بغيرنا يا إلا هذا قبل كجدو وحليها أمي اللي طبعا كاس الصومالي حيمه النقطان بقى ويصير كبد بعدين أنا مركو ورما أنا مسني سيدا لكن هذا وحوافق سنة إلى بدبالة أوتاي السجع أيها صحيح اللي هي توقع إنه لما بيرضوا قبته وقول كجدو ومتى لهوش يصير كأكو قبصه السجع أيها صحيح هذا لا السجع أيها جديدا وحي وسووا سبعين هي وديدية وحي وسووا صحيح وديدية محاور رواية محيط هاي أحمد وكفلا وكوكا عكرايو ما تلت وكوكا عكرا وكوكا عكرايو وهل شيء وكليه هل شيء وكليه ويه إنه محاك ولا هذاي غابري قالوا حتى تي الله أتمنى إنه قال إنه حتى عرفت إنه قال عمرين معي هل كايرو كسو هل وهل كسو دارني يا عمرين إياه أنت كوساب سمحاك ولا هذا برلمان جبل هذا حبنا لقى دورتي أقل سريع وقال صبر لما دورني اللي ساق كان صديق وبرلمانك شرفت لها وبرلمانك هو شيء وبدك أوديسة هي عقل كيسة هي نظام كيسة وأودك من صدق هذا أودات الدل كلية لما صار هو أحيانا كي أي الله كي محل لوك حي كي لك اللي دورتها محل كي لوك حيليا ما لو صار دارنا يا محل وصل سبعينيا هوتيلات دتشية شركة dadka ka bixi mustara oo rag musharrixiin doonaya inay wax u qabtaan lawaan cod ka helaan ayaa kharash ka bixinaya oo hoteelada dajiyay isaguna uu heshiis ku leeyahay waxay la mid tahay taaso waqtigii slave trade dadka la gadanayay in baarlamaanka Soomaaliyeed uu ningato oo ka haysto oo wadamo kala geysto waa wax ajiib ah waxay ahayd hadii meel la geeyo caasimadoodii in la geeyo Muqdisho caasimadii in la geeyo bay ahayd laakiin nasiib darro kii la doortay oo kii uu magacaababa doorasho ma ahe waxa loo dirayaa Nairobi loo dirayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa ay baarlamaanka Soomaaliyeed waliba si xusuusinaya sharafta leh wixii dhacay way dhaceen idinka ayaa baarlamaanka ninkii la doortay laakiin dalku idinku ayuu idin sugayaa dalka matidin Roberts idinku dadka maxaan ku raahday siday doonaan laga yeeli karahay matidin kolka aydan codka gaadhaan cidda aad u maslaynaysan inay maslaxad ummadda u tahay doorta sharciga aad u maslaynaysan inuu maslaxad Soomaaliyeed yahayna fuliya oo ku dhaqma laakiin halka waxa li aad ku soo sidaad ku soo baxdeen hadii aad ku shaqaysaan dalku wasiix xumaanay wasiix burburaya kuwa ku dayanaya Jubbaland waxa ka dhacay dhinacyada jirana aad baan uga xumahay waa ku dayasho foorxun waxsan baa lagu daydaa ma ahayn in lagu daydo min xiis in lagu daydo oo Soomaaliya min xiis la geliyo ma ayna ahayn waa arrin la sidara aad u weyn baarlamaanka waxa leeyahay cidda aad u maleynaysan inay maslaxad tahay doorta wixii leedin yiri ee halka leedin ka yiri cidii leedin dhiibay waa been waa cadaalad darro waa khalad waxaan xusuusnahay baarlamaanka nabi u dambeysay Axmed wuxuu wareeyay Maxamed Umar Cabdirashiid buu wareeyay halka kulkaan tagaynay waxaan ku dadaalay inaan ogaano bal waxa Jubbaland mowqifka ay wadato waxa weeye soo wuxuu barkuu dambeysay dhowr waa saadontay waxa kula qmayeen hada ma baxmay taas sax bay ahayd laakiin ragii uu ballanta ka qaaday ee waxdiga la galay ee in Cabdirashiid aha ee aan ogahay inuu wali wax badan la qabtay isaga iyo ninkii xeeran ra'iisul wasaarihi labadaasba wax badan bay la qabtay waqtigu meesha imanayay muxuu ugu abaalguday dali ma wuxuu filayaa hadda wixii in Cabdirashiid uu ka waayay isagu inuu ka heli doono mid dali filayaa dali ha ku khaldamin عرورها قارن على عيار باكرة أحمد هلا عيار أحمد مالكم الجالسين أيوه قلك على أي وقت لو كحرن دونا وارهوا ركل أيوه متغنى يا هذا ذيك الشركة الله
waqti dhow buu kaa tagahayaa waxaad la soo qabato dhanna ma xusuusanayo haddii wax qabasho ay watarayso labadii madaxweynaha dhinacyada ka qabtay garab istaagay maxaa kolkuu halkan imada diyaaradaha la xidhay ee lala dagaalamay muxuu ugu abaalgaday madaxweynayaashii hore muxuu